ربع تضبية تمكي بشع دعدي مقالة جرو كدعدي وحي هاي مد أجوبة ودمان هير جرو هي شركة نيكسون أجوب كو هاي الدو هي تمكي صنو وصوت عفينا إلهي مهدي اسماء سنهاي من نقول علي هالمر أيها واحد عايشين كاسو سببي إن قلب بدن وكرنتو قدين جري أي قبتان مقالة قيبه عندنا ورابين جري الحمد لله رب العالمين ددال دير iyo mataqaana shaqaalaha shirkadda iyo injineerada iyo ilaahay qadarkiisa waxay dhacday inaanu ku guuleysano 12 saac kadib inaanu magaaladii oo dhan aanu korontada ku soo celino walow wali ay waxa weeye aasaati iyo damage-kiina gaaray uu jiro oo aad ogtihiin markii qalab uu ka gudbo ama dhibkaan oo kale uu kugu dhaco wadankeenu inuusan lahayn wax walba aadan ka heli karin oo u baahan tahay dibadda inaad ka dalbatid saas darteed waxay ahayd dhacdadaasi runtii dhacdo guud ahaan shirkadda Nexon iyo macaamiisheedaba ugu ku ahayd kuna soo beegantay waqti adag oo bil Ramadaan lagu jiro magaaladana ay ka jiraan muxuu ahayd cudurro oo dadka in badan ay u baahan yihiin oxygen joogto ah isla markaasna kuleyl saa'id oo jiro runtii waxaanu ka bixinaynaa raaligelin dhacdadaas buuxda oo ahayd mid aanan saadaalinayn oo si lama filaan ku dhacday dadaal dheer kadibna waxa weeye adeegii uu hawada dib ugu soo noqday intaas kadib raaligelin iyo faahfaahin dhacday madaa ka soo gudbo waxaan rabaa halkaan inaan ugu horeyn aan u mahadceliyo Allah subhanahu wa ta'ala oo noo suurtageliyay intii yarayn ee nala tusayay barwaaqadii 12 sano aan nuugaynay xusuusin bay ahayd baan isleeyahay wax kale ma ahayn inay dib haddana adeegii uu u soo noqdo waxay ahayd ilaahay awoodiisa ahayd insha Allah mar labaad waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan macaamiisha shirkadda Nexon ku sugan magaalada Garowe sacrifice-kii iyo dulqaadkii ay sameeyeen ducadii taladii iyo tusaalihii ay noo soo jeedinayeen intii ay korontadu ka maqnayd hawada aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin Nexonna waa idinka intaas kadib waxaan rabaa inaan halkaan uga mahadceliyo madaxweynaha dawladda Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo runtii nala dareemay mas'uuliyadda intaas leeg oo xiriir joogtaan nala soo sameeyay wafdina noo soo diray sida loo qaymeeyo xaaladda dhacday iyo inta magaaladu ay ku sii jirayso arrinkaas wasaaradda tamarta Puntland iyo wakaaladda oo socda waxay ahaayeen waftigii noogu yimi iyaguna xarunta runtii mahad ballaaran baan u soo jeedinaynaa ugu dambeyntii waxaan rabaa injineerada iyo shaqaalaha shirkadda Nexon oo waqti adag oo Ramadaan ah iyagoo aan afurin ku hawlanaa siday macaamiishooda korontada u siinayeen inaan halkaan hambalyo uga diro iyo mahadcelin intaas kadib waxaa dhacday 12 saacadood kadib in adeegii 99.9 uu ku soo noqdo magaalada walow wali uu jiro dhaawiciina gaaray oo hadda aanu isticmaalayna xarumihii backup noo ahaa haddaan inta uga gudbo waxaan rabaa halkaan waxaad dareemaysaa shirkan jiraayad Nexon baa qabatay laakiin waxaa arkaysaan haddana baanala kala duwan oo ay leeyihiin bangiyada magaalada Garowe ka shaqeeya iyo shirkadaha isgaarsiinta Puntland sababtu marka waxa laga yaabaa dad badan inay isweydiinayaan shir jiraayad oo Nexon ay qabatay maxay baanaliskan badan ay meesha ugu taxan yihiin walaalayaal waxaad ogtihiin muddo hadda sanad iyo dheeraad ah inuu xanuunka faafa ee COVID-19 uu waxa weeye adduunka oo dhan saameeyay dawadiisa iyo mataqaana dardaarankiisuna uu noqday in la ilaaliyo wax la dhaho taxadar iyo fayadhow taasna waxay keentay waqtigii haddii uu dheeraaday xanuunku uu adduunka ku jiray in shirkadda Nexon ay lacag ku bixiso say isugu xiri lahayd ama u sahli lahayd systemkeeda biilinka iyo bangiyada inay isku xiraan iyo shirkadaha isgaarsiinta oo qof walba oo anaga macmiil noo ah isagoo gurigiisa jooga oo caafimaad qaba oo aan Nexon soo aadin oo fayl dheer gelin albaab aan taaban uu si fudud ku bixin karo kuna ogaan karo biilkiisii waxaanu dhammaan fikirinay bangiyada iyo shirkadaha isgaarsiinta aad iyo aad bay u mahadsan yihiin dhammaantood waqti kooban ayay ka jawaabeen inay sameeyaan integrationkaas injineeradooda kala duwan iyo kuwa shirkadda Nexon maanta waxaa diyaar ah bangi kasta qof kasta oo akoon u leh ama customer ka ah ama kaar kasta oo isgaarsiina uu wata
inuu qaab online ku bixin karo kuna ogaan karo biilkiisa. hadda waxaan rabnaa insha Allah ka shaqeynaynaa cabashada iyo dadka cusub diiwaangelintooda inaan iyagana saas oo kale aan online uga dhigno si muxuu ahayto fayaqabka macaamiishayada iyo muxuu ahayto dardaaranka iyo awaamirta wasaaradda caafimaadka iyo dowladda Puntland ay noqoto mid aan anagu aan hirgelino dadkana muxuu ahayto aan ugu horeyno insha Allah. aad baan mar labaad iyo saddexaad uga mahadcelinayaa shirkadaha isgaarsiinta iyo bangiyada runtii tiknoolajiyada casriga ah ee leh muddo yar inay ku hirgeliyaan habkan fudud ee online-ka ah. sidoo kale injineerada IT-ga ee shirkadda Nexom oo mar walba iyaguna ahaa dadkii integrationka sameynayay oo u ogolaanayay inay isku xirmaan bangiyadii iyo shirkadihii isgaarsiinta iyo systemkii Nexom. walaalayaal intaas kadib waxaan rabaa munaasabadan oo maanta ah bil Ramadaan in badanna aad na sugayseen ballanqaadna shirkadu ay samaysay in qiimaha la dhimo iyadoo aan isleenahay waa waqtigii ugu munaasabsanaa cudurro abaar iyo muxuu ahayto bil Ramadaan intuba ay jiraan ayaa waxaan rabnaa maanta inaan halkan kaga dhawaaqno inaanu samaynay qiimo dhimis runtii ballaaran oo aan isleenahay wax badan way ka bedeli kartaa nolosha iyo muxuu ahayto adeega korontada intaba. sida marka aad aragtaan halkan waxaa ku aragtaan panelkaas waxaad aragtaan Nexom istaraatiijiyad bay leedahay 5-year plan. 5-year plankaas waxa weeye mar kastaba 20% wax ku dhow in qiimaha hoos loo dhigo. qiimaha aan ka hadlayana uu yahay qiimaha ugu sareeya ee Nexom ay ku bixiso kilowatt kaasoo 2010 2015 sida aad aragtaan ahaan jiray 0.95 haddana aad u jeedaan 2016 markii la hirgeliyay mashruucan solarka iyo dabaysha inaanu 20% kale aan dhignay oo 0.79 aan geynay. intaas kadib maanta oo aan joogno 2021 waxaanu ku dhawaaqaynaa inaan qiimihii ka dhignay 0.59 qiimaha ugu sareeya ee aanu koronto ku bixino. wuxuuna ka bilaabanayaa 1 bisha April 2021. intaas waxaa dheer halkan waxaa ku aragtaan sagnatiyo kale oo kala duwan. waxaad ogtihiin waddankeena waxaa jira warshado wax soo saar oo dib ugu soo noqonaya ama dadkeena mataqaana lacagta haysta ay hirgelinayaan si aanu u dhiirigelino employment fiican iyo shaqaalaysiin loo helo. waxaanu ogaanay warshadahaasi midda ugu yar inay isticmaalayso 10,000 oo kilowatt bishii. saa darteed waxaanu ku siinay qiimaha يعني wax ka yar cost per unit costiga ama kharashka uu noogu soo baxo kilowattku wax ka yar baan ku siinay. waxaan aragtaan 0.3 sida halka idinka muuqata waa offer ay leeyihiin warshadaha wax soo saarka isticmaalkooduna uu badan yahay si wadanka wax soo saarkiisana aan u dhiirigelino income-ka dadka ama macaamiisha iyadana aan kor ugu qaadno shaqaalaysiin badanna laga helo warshadaha cusub. sidoo kale waxaad aragtaan 0.5 oo isaguna ah hoteelada waaweyn iyo goobaha suuqyada ee waaweyn inaan iyagana 0.5 ku siino oo ah runtii waxaan hadda qiimo dhimistan garaafka ama slope-kan aan ku jirin. waxaa jira guryaha caadiga iyo isticmaaliyada businessyada yaryar oo ah runtii qiimaha ugu qaalisan hadda aan bixino maanta 1 bishii April ama bishii aan ku jirno 1 laga bilaabo waxaanu ka dhignay 0.59. qiimahan ma ahan mid ku bees garaysan shidaal jabay ama xaalad gaar ah sida bil Ramadaan ama duruuf gaar ah oo cudur keenay. Nexom waxaa la rabaa ama istaraatiijiyadeedu ay tahay meeshii ay degto inay hoos uga degto ma ahane in aysan kor aysan uga kicin. intaas kadib waxaan rabaa halkan waxaa ku aragtaan isagana panel kale oo runtii waxaan isleeyahay maanta culeysyada badan ee isbitaalada iyo mataqaanaa masaajida wadooyinka iyo xarumaha dadka waalwaalan saldhigyada waxaas oo dhan oo shirkadda saaran oo sanadkii 1 milyan lacag ku dhow ay nagaga baxdo haddii culeyskaas maanta uu Nexom uusan saarnaadeen qiimuhu wuxuu ahaan lahaa 0.35 0.4 uu ka yaraan lahaa intaa. laakiin waxaad ogtihiin culeys fara badan oo dadweyne